qofka ay haleesho arrin ka tabarbadisay yacni qofka uu ka caajisay arrinkan inuu qabto ama arrin buu qofkii sameeyey isagoon doonayn ayuu is arkay isagoo dhex fadhiya kadibna wuxuu garan waayay sidoo uga baxo waa arrimo dadka qaarkood haysta waxaana walaalayaal noocay doonaysaba ha noqdee haddii arrin uu ka tabarbarto oo aad is dhiibtid oo iska fadhiisato fikir aada bilowdid halkaasaa aadine aayaddan aqri ilaahay idinkii sababteeda iyo barakadeeda waa ka badbaadaysaa makhraj iyo waddaana helaysaa dadka qaarkood dhibaatadaasa haysata ogow addoonkan ilaahay waa imtixaamayaa si addoonka loo dareensiiyo inuu rabbi leeyahay xaggiisa u soo cararo oo u baryo si arrintaa u xaqiiqowdo addoonka waa la imtixaamayaa arrimaha qoorta loo gelinaya uusan doonayn arrimuu ku khasbanaanayaa inuu sameeyo arrimu wuxuu arkaya isagoon rabiinba inuu asagu dhex fadhiya arrimu wuxuu arkaya inuu la murguyo la walwalayo qofka arrimahaas oo dhan waa yacni lagu imtixaamaya si loo dareensiyo inuu addoon rabbi u yahay oo rabbi ogaado inuu arrintan ka saari karo aayaddan akhrisoona celceli ayadu waxay tilmaamaysaa inaad taladaada iyo arrimahaada ilaahay u dhiibatay aayaddaani qofka waxay ka badbaadinaysaa ilaahay idankiisa asagoo qur-aanka dhan buu ka badbaadinayo dhibaatooyinka iyo mashaakisha uu qofku ku dhaco ama musiibada haleesha ayuu meel uga badbaado helayaa bacda taqwa allahi alla ka cabsiga kadib xitaa qofka hadduu cadow ka cabsanaya ilahay cadow waa ka badbaadinayaa aayaddan akhri wardina ka dhigo maalin kastana akhri ilahay waa kugu badbaadinaya sababteeda markaa bisinka akhrisid aayadda ku dar aayaddu fii suurati ghaafir bay ku jirtaa ilahay wuxuu yihi wa ufawidu amri ila allah in allaha basiirun bilcibaad amarkayga iyo taladeeda ilaahay baan u bandhigtay u dhiibtay ilahayna addoommadiisa isaga arkaya wardi ka dhigo maalin kasta akhri aayaddaas tiradaa doonaysid awoodid akhri saameyn bay noloshaada ku yeelanaysaa walwalka iyo walbahaarka iyo arrintaad dhex fadhido meelaad uga baxdi weydo oo adigu isdhiibisa caajistay saameyn bay ku yeelanaysaa ilaahay idankiisa sabab baa ilaahay kaaga dhigaya inaa uga badbaadid dhibaatadaas